السلام عليكم دوانا غير تصور دواد ملك سو جوجتين ونور الدين وفيشال فيديو بدن وسب ذا سبسكرايب كنوصار هذا هو نور جوجتنا هذه هذا كايم تلينينا عاو حكى لنا ما شاء الله هو فاطمة صالح هو اللي هذا وعرورته ديب يرفعت كسو كورسي ومرك الله على مركز جامعة دميين شقوا ويسينمي ومتصور مالي إنه حكى عصنين عاويان هو فاطمة صالح كده نلا دعوة وحير. جانس كار قناة. جانس كمركي أقدر تمارس. لا نقول جميع ده. ماما جبي وشالي كورن أتكون جرتين والمها إن إيشك وقتي وعبرشة يكون جرنا هرجت كأكون جرتي إيمان تو إيشك مريه أبدحشين. الضيسان إلهي نفطه يجي قاعد تواجب كي وكنا. أنا قرقنا النهار تاجنا هاي ما أنت أدبر لو فرح سنة هاي وإحنا دوننا إن فرح حدا ماما فاطمة صالح يولبا إن عرورته هذا أو إيمانكا إن كقلن جبي جامعة إن كلا قيب قاعدة إنه إسلام كان عن إدين سوق بينه شيكا لنا مروجة كله لنا إن فرحات كله وأنا أوباهن دمستير إن باشان ينبضن عن هاينا إن وحي قيب مغلق سوق قاعدتي وحبرشة إن وحيدا أكتر تاجن يدو جدًا نال صعدة farxadda iyo dhool cadeynta idin muuqata waxa ka horeeyay nolol adag rafaad badan oo lagu daray dhabar adeeg loo soo maray si lagu soo gaaro halkan walow farxaddu ay ka dhiman tahay dhameystir yar oo u dhiman familkan taasi oo ah inay gurato mirihii ay beeratay hooyo Faadumo Saalax Abtiyo oo ah hooyada dhashay Xaliimo iyo Cabdishakuur oo ah arday dhameysatay sanadkan heerka koowaad ee jaamacadaha dalka isla markaana kala bartay kulliyadaha kala ah cilmiga beeraha iyo cilmiga caafimaadka nolosha adduunyadu waa kadeed iyo imtixaan balse waxa ay u baahan tahay dhabar adeeg waana mid ay sameysay hooyo Faadumo Saalax Abtiyo hooyo Faadumo ayaa carruurtan ku soo korisay nolol adag taasi oo sababtay inay ilinta Aishan weyso kadib markii ay aragtay farxadda ay ku naaloonayaan carruurteeda maanta dareenkayga aad iyo aad hooyo macaano ma sha Allah aadan u faraxsanahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin ciyaalkan horta ilaaha isistay aniga dhalay ilmahan arkaysidna kulay 8 ruux waaye ma sha Allah Allah u naxariistay aabihi iga dhalay uu xijaabtay markii asaydi iga degay oo ilmihii ay iga anfariirsan yihiin oo ayaga dhan tiiraanya ay ka muuqato wax habi aanan waayay ayaan dhahay nimayo idinka maxaa idin ku dhacay aabihiina haduu xijaabtay alxamdulillah hadda anaa idin jooge adduunyada la islama joogay waa la kala hormaraaye maxaa idin ku dhacay marka waxay dhaheen hooyoy annaga aabaheeni oo mutacallim aha oo heer jaamacadeed asiga wax ka dhigay asiga jaamacad ka soo qalin jibi ma anagana maanta ilaahay qadartiisa ay tan nagu timid waxaan dhahay alxamdulillah nasiibkiina ilaahay ka dhigay laakiin intaan noolahay insha Allah taala inta asayda ii saarantahay ma ogiye kadib waxa igu balan inaan dhexda idin xirto suuqi kadib waxaan qabtay hooyo dhul beereedaan aaday waa fahanteen u maleynaa Allah u naxariistay aabahay markuu dhimanaya dhul yar oo laba jibaal oo igaga tagay dhulkii aan aaday dhulkii markaan aaday labadii jiwaal wax soo saarkoodii waa wax iska yar oo basiid ah ani iyo ciyaalkii iyo waxbarashadii cunadii way saamixi weysay markaasaan dhul kire aan raadsaday oo ilaa hadda hataa marqaati laga leeyahay oo tahay oo la waxaynaay markii hadda waa yaanbadan aan ilmaheegii mujeedaa aan ugu soo caano maashti anigoon weligeyba yaa aan beer falin oo xamar la igu dhalay xaajimo xanjeera agtiisa la igu dhalay hotel Soomaali gadaashiis guriyaha ku yaalo ayaa la igu dhalay haddana wuxuu ilaahay qadaray inaan yaanba qabsado oo ilmaheyga dhexda u xirto waxyaabaha qaarkood ma ka sheekayn karo haddaan waan ka sheekaynaan dhahay ilina isoo dhaafayso hooyo waa fahantay u maleynaa waxa marqaati ilaahay oo ka yahay in oo maxaa dhahay asiga aan maxaa dhahay asiga hadii oo aan beerti meeshii yaroodo wax aan ka soo guray aan gaadiid ku qaatay hataa aan waay doontii baawur la'aan igu qabatay aan meesha jiifo ilaahay roob igu keenay korkeyga hataa dhasa inuu galo ilaahay ii qadaray ilmahan daraadooda dhibka aan ka soo maray hooyo haddaan kaaga sheekay taariikh koobaysa ma ahan maamo waa garatay u maleynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin hadda laakiin maanta aan u jeedid farxad weyn aan taagana alxamdulillah ilaahan ugu mahadina alxamdulillah 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 hooyo ma sha Allah ma sha Allah ilaahay ku barakeeyo ilmahaaga oo Amiin. ku garab istaagi doono amiin amiin hooyo inaad shaqo si fudud ku hesho garab la'aan adiga oo wax bartay aad bay u adag tahay Soomaaliya
balse hooyo Faadumo oo taa aan ka quusan ayaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo dowladaba ka codsatay inay shaqo u siiyaan ilmaheeda si ay u nasiyaan iyada kana saacidaan waxbarashada carruurta kale ee iyaga ka yar. ilmahayga aqoon waa leeyihiin waa ku soo dadaalay labadan le ma ahan waxaa kaloo jira 3 cunug oo ayaga ka waaweyn horta kuwaasa maasha Allah garab isoo siiyay aan u duceeyay ikan Ilaahay muraadkooda inuu u sahlo Ilaahay idinkiisa laakiin 3 kaleento ka yar waxaan rabaa in la kaalmeeyo garabka leega qabto Soomaali weynta ma fahmino hadduu Ilaahay ku rooyaa ilmahan la ii shaqaaleysiyo oo la ii shaqaaleeyo si ay ilmahaas kaleento ay kana garabka ay iiga soo qabtaan laba haday jaamacad bilaabeen halna dugsi sare waaye anigi waayeelaan naqday tabarteedii way sii yaraatay ma fahmino taasna haddii ay Ilaahay ilaahu ahay ummadda Soomaaliyeed ay iigu saacidaan ilaahan ayagana u baryaaya inuu Ilaahay muraadkooda u sahlo watahay in lama soo koobi karo farxadda hooyo Faadumo Saalax Abtiyow iyo waliba carruurteeda oo waxbartay taaganna waqtigii ay ku nasan lahayd isla markaana mirihii ay beeratay guran lahayd waxa ugu muhiimsanaya waxay tahay oo farxaddan ay ku dhameystirmi karto in Xaliimo iyo waliba Cabdishakuur ay inta shaqo helaan hooyadoodna siiyaan taasina waxa loogu fadhiyaa bulshada Soomaaliyeed kambaniyada haday ahaan laayeen haddii isbitaalada ahaan laayeen haddii dawladda ay ahaan lahayd oo iyada maaragtay mas'uuliyad ay ka saaran tahay ardaydan waxbartay. Xaliimo iyo Cabdishakuur oo waxbartay waxay fariin u direen dawladda Soomaaliyeed iyo waliba ganacsatada Soomaaliyeed ee wax haysta in ay shaqaaleysiiyaan isla markaana ay aqoontooda ka faa'iideystaan iyana ay hooyadood ugu faa'iideeyaan waxa ay barteen. marka maamada aad iyo aad u dhibaataysan tahay ummadda Soomaaliyeed ay baa ku diraysaa ganacsatada baa ku diraysaa culimada diinka baa ku diraysaa dawladda Soomaaliyeed baa ku diraysaa waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliyeed ee masaakiinta iyo dadka baa calaashan dhibaatada gaarka qabo oo haddana wax soo bartay amba shaqaysan karo inay shaqooyinka calaashan laga dhaafo habkan la isku siinayo oo nin aan waxba soo baran iyo nin aan wax soo bartay maamada waxa uu rajeynaa guul insha Allah noolaadeeda Ilaahay uu barakeeyo ma sha Allah maama soo dadaasho way Ilaahay inta dhimanay oo dhameystiro idinkana ummadda Soomaaliyeed ninka wax ku tari karo qoftii calaashan wanaag wax ku sadaqaysan karto iyo qoftii Alle ilaahay u duceey karto duceey insha Allah marka barnaamijkeena taas ku saabsan insha Allah caawin aad iyo aad u mahadsantiin.